الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ولا ليال حلقتنا عاوة وحويان العالم قبل الإسلام. العالم قبل الإسلام. waxa aynu caawa isu hor fadhinaana waxa weeyaan in aynu ka sheekaysano oo aynu wax ka baranno taariikh nololeedkii rasuulkeena suuban salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi, Muhammad ibn Abdillahi ibn Abdilmuttalib ibn Hashim ibn Cabdi Manaaf sala allahu calayhi wasalam. waxaanu ugu magac darnay baro rasuulkaaga. baro rasuulkaaga waa xalaqadii koowaad, alcaalamu qabla alislaam. walaalayaal, inakeena aynu wax ka ogaano xaaladii mujtamacii jaahiliga ahaa ee rasuulka inta aanan la soo saarin horteed jiri jirtay jasiirat alcarab, iyo sidii uu ahaa caalamka qabla alislaam. inta aanan islaamku imanin caalamka noloshii uu ku noolaa xaaladiisu sideebay ahayd, si aynu markaa u ogaano oo aynu u aragno sida Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi uu caalamkan ku yimid, siduu markaa dabadeed ilaahay uu ugu nuuriyey qalbiyaalkii mugdiga ahaa ee joogay, ilaahay uu ugu hanuuniyey qalbiyaalkii ama laabyaalkii baadida ahaa, ilaahay uu ugu badbaadiyey bashariyadda idaylkeed koonka oo idil, oo uu uga saaray mugdigii ay ku jireen, oo uu u saaray iftiinka iyo nuurka, min adulumaati ila annuur. jasiirat alcarab haddaynu ka horeyno, jasiirat alcarab waa meeshii uu ku dhashay ee laga soo saaray weeyaan Muhammad ibn Cabdillaahi ibn Cabdilmuttalib ibn Hashim ibn Cabdimanaaf salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi. caadooyin xunxun ayay lahaan jireen. maxaa wacay waxay ahaayeen bulshooyin aad iyo aad jahligu uu ugu habsaday, jahli bay ku jireen, dulmigii ayaa saameeyey, cadaaladii ayaa ma aragtaa cadaalad la-aan bay ahayd, oo cadaaladii ayaa meesha ka baxday, sinaantii iyo ma aragtaa wada noolaanshihii sida wanaagsan loo wada noolaanayay meesha way ka baxday. caadooyin marka waxaan idin sheegayaa xunxun oo saameeyey jasiirat alcarab idaylkeed. jumlada caadooyinka xunxun waxaa ka mid ahaa ee carabtu markaa ay caanka ku ahayd si baaxad leena ugu fiday, waxaa ka mid ahaa khamriga oo la cabo, shurbul khamri. khamriga ayaa golayaasha lagu cabi jiray, wadooyinka ayaad arkaysaa dadkii oo cabaya, iyagoo ma aragtaa meelaha la fafadhiya, iyagoo weliba ku faanaya, iyagoo khamrigii ammaanaya, oo shiciradoodii ayaad ka dareemaysaa siday u jeclaan jireen oo ay u ammaani jireen. khamrigii cabitaankiisii ayaa fiday. khamrigana sidaad ogsoontihiin wuxuu daboolaa caqligii uu ku fikiri lahaa insaanka. khamriga waxay ahayd caadooyinka xunxun. markii dambe oo islaamkii uu yimidna ilaahay waa uu joojiyey khamrigii. khamri qofkii maanta adduunka ku cabaana aakhiro dhadhamin mahayo, oo khamrigaa macaan, oo caanaha ka cad, malabkana ka macaan, maaragta miskigana ka udeyga badan, jannada ilaahay inoogu diyaariyeyna dhadhamin mahayo qofkii maanta adduunka ku cabaa haddii uu galo janno. shurbul khamri. ka labaad waxay ahayd khamaarka. khamaarku waxay ahayd caadooyin aad iyo aad u xunxun. waa khamaarka maysarka loo yaqaano weeyaan.
waxaa khamaarkii ayaa meel walba dadku ku ciyaarayeen, waa sida turubkoo kale, maaragta dubnadoo kale, waxyaabaha waktiga aanu ku lumino. laakiin iyaga khamaar bay u ahayd oo lacagay isaga heli jireen oo maaragta way ku khamaari jireen. waxaana laga isticmaali jiray oo ay ahayd caadooyinka magaalooyinka waaweyn, baadi lagama aqoonin, laakiin magaalooyinka waaweyn ayaa lagu ciyaari jiray, sida makoo kale, taa'if, sanca, yathrib iyo keyrkood. kuwaasaa lagu ciyaari jiray, waa magaalooyinka waaweyn. qofka haddii uu yimaado magaalada wuxuu arkayaa dadkii oo dhan oo koox koox u wada fadhiya oo khamaarkaas ku ciyaaraya. cudur wuxuu ahaa ku fiday bulshadii waagaa jirtay. caadooyinka waxaa kaloo kamid ahaa wa'du lbanaat, waa jaziirat lcarab. wa'du lbanaat, gabdhaha oo la nolol duugo, iyagoo nool ayaa gabdhaha la duugi jiray. bal adigu male oo sawiro gabadhaadii qaaliga ahayd, 9 bilood aad soo siday oo aad la soo xanuunsatay, oo maaragta 9 bilood markii ilaahay nabad uu kaa keenay, uu kaaga keenay, oo ifkay u soo baxday, indhuhu ku qabowsanayeen, aad carafsanaysay, laabta aad ku qabsanaysay, oo aad diyaarka u ahayd in aad korisid. haddii aabbaha intuu kaa dhibsado adigoo arkaya hortaada saxaraha intuu carrada faago, haddii uu dam ku siiyo bal ka waran. hooyooyinkii waagaa jiray silac ayay ku noolaayeen. maxaa wacay hooyada waanu garanaynaa dhibaatada iyo ma aragtaa murugta qabanaysa mar alliyo markii ubadkeedii 9 bilood ay soo siday horteeda lagu aaso. arxan daradaasaa marka ka jiri jirtay waayadii hore jaziirat lcarab. qur-aanka ayaa inooga xikaayoonaya weliba xaaladii ay ahaayeen raggu marka loogu bishaareeyo gabar baa ku dhalatay marka la yiraahda. ilaahay waata aayadiis uu ku leeyahay waidaa bushira axaduhum bilunthaa dhalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiim. haddii loogu bishaareeyo midkood oo la yidhaahda gabar baa ku dhalatay, wejigaa madoobaan jiray, wejiguu ururin jiray, wejigaa caraa ka buuxsami jirtay. wax kalena kuma fikiraayo markaa iyada ah. wuxuu ku fikirayaa oo qura sidii uu ku aasi lahaa. ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab. ma wuxuu ku aasaa, ma wuxuu ku qabsadaa gabadha oo uu ku haystaa ma aragtaa fadeexada iyo ceebta iyo ma aragtaa wuxuu ku haystaa, mise wuu aasaa oo dhulka ayaa gabadhii la siiyaa. maxaa wacay golayaashii ma tegi karo, raggii saaxiibadii ahaa meelaha ay fadhiyaan ma fariisan karo, meelaha ay ka hadlaan kama hadli karo, wax uu sameeyo ma laha. mar alliyo markuu golaha u soo dhowaado waxaa la leeyahay war hanoo soo dhowaan, gabar baa kuu dhalatay, orodoo naga fogow, gabar baad leedahay, annaga rag baanu leenahay, wiilal baanu leenahay, waa kuwaana garbaheena taagan, magaaladii la socdaano, golayaashay wiilasha keenaano, meeshaa wax lagu baraao, dagaalka lagu baraao, hadalka lagu baraao, carabiga iyo suugaanta lagu baraao. markaasaa la leeyahay orodoo naga tag. gabadhii baa lagu ceebeynayaa ilaahay uu siiyey. ayumsikuhu calaa huunin, ma ihaanadaas iyo dullinimadaas iyo ma aragtaa ceebtaas ayuu ku haystaa, iyo aflagaadada iyo hadal xumada, ma murugtaasoo gabadhii isaga haystaa oo uu ku qancaa, mise waxa weeyaan am yadusuhu fi turaab, ama wuxuu ku aasaa dhulka. shaydaankii baa marka wuxuu u qurxinayaa in uu dhulka ku aaso. waxaa la leeyahay war gabadha adigoo gabar le meesha ma tegi kartide, ragga ha ka harine, gurigaa ha dhex fadhiyine, war waxa kan iska aas. markaasuu aasayaa. xaaladaasay marka carabuhu ku jiri jireen, jaziirat lcarab, waana intooda badan weeyaan. xaaladaas hooyadu ay ku jirtay oo murugta ah, qof ka saarana ay weyday, u kaalay addoontii allahi, u kaalay islaamka dabadii markii uu dhashay moxamed ibni cabdillaahi ibni cabdilmuطalib ibni haashim ibni cabdimunaaf, u kaalay dadkii ku aasi jiray ee ku xumayn jiray oo ma aragtaa dhulka ku gelin jiray ayuu isdhex taagay. markaasuu wuxuu damcay inuu xaqaagii kuu soo dhiciyo, wuuna ku guulaystay. waa kan isagoo dhahaya man kaana lahu bnataani faaxsana ilayhimaa kuna lahu sitran min annaar.
qofkii laba gabdhood ilaahay uu siiyo, laba gabdhoodoo uu dhalay, laba la dhalatay, laba habar yarihiina way soo gelayaan, laba eedooyinkii, laba ilmo adeero ay yihiin, laba uu korinayo oo uu ixsaan fala, wanaajiya, koriya, quudiya, uhuwiya, waxbara, madaxa u salaaxa ilaa ay ka weynaadaan, kuna lahu sitran min annaar, waxay u noqonayaan cadaabka ayay xijaab uga noqonayaan. waa moxamed waxa sidaa dhahaya, hadalkaa udgoon ee carfoon ee afkaa shariifka ah ka soo baxaya, waxa ay ku dhacayaan waa qalbiyaalkii dadkii ku aasi jiray weeyaan. ma aragtaa hadalkii oo socda oo gelaya laabtii dadkii ku aasi jiray, dadkii jaahiliinta ahaa ee carbeed. markaasaa waxaad arkaysaa laabtoodiioo markiiba dhalaalaysa, laabtoodiioo dhalaalaysa, laabtiioo xididadii intay u gudbisay, jirkii ay u gudbisay, iyagoo dubaaxinaya. waa kuwan iyagoo gacmaha kor u taagaya oo usoo dhowaanaya rasuulka oo dhahaya laba ma haysanee, hal baa noo joogta rasuul allow, hal gabar baanu haysanaa oo noo hadhay, haddii aanu korino oo aanu wanaajino u naxariisano xijaab biyay nooga noqonaysaa. rasuulkaagiio qoslaaya markuu arkay dadkii oo maanta giddigood leh gabdhaha waanu ilaalinaynaa, waanu korinaynaa si aanu aakhira ma aragtaa janno u gallo. siduu u bedelay fiiri marka bulshadii. waa ka haddana isagoo dhahaya, man ibtuliya min hadihi اlbanaati bishayin faaxsana ilayhina kuna lahu sitran min annaar. qofkii haweenkan wax uun looga ibtileeyo, hal, labo, saddex gabdhood, 4 ilaa iyo 10, ilaa inta ilaahay qadaro, oo markaa u ixsaan fala gabdhaha inay xijaab ku noqdaan maalinka qiyaamo, in ay janno ku geeyaan, rasuulka maciisa inay ku dhigaan. waxaa shardi looga dhigay in aad u ixsaan fashid. gabdhuhu waa ka daciifsan yihiin ragga. in aad ixsaan u samaysid, in aadan hadallo xunxun dhihin, in ma aragtaa aadan dhibin, qalbigooda murug inaadan gelinin, wax walbo ay kaaga baahdaan oo wanaagsan aad siisid, u ixsaan fashid, wax bartid, u naxariisatid, in aad had iyo jeer xaaladooda la socotid, mar allaaliyo markay caawimaad iyo garab kaaga baahdaan aad hiil iyo hoobaba la garab taagnaatid weeyaan. haweenka yaryarka ah naxariis weeyaan. markaasa waxaa la yihi qofkii u ixsaan fala faaxsana ilayhina kuna lahu sitran min annaar. mar kalena waa kan isagoo dhahaya, axaadiistu waa wada saxiix, man caala jaariyatayni xataa tablugaa jaa ywma alqiyaamati ana wahuwa ka haatayni. qofkii koriya oo barbaariya laba gabdhoodoo uu dhalay ilaa ay ka qaangaaraan, maalinka qiyaamaha wuxuu imanayaa aniga iyo isagoo labada isku lamaan sidan oo kale ah, intuu labadiisa farood isku dhejiyey. moxamed weeye salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi. way ku aashi jireen markii hore jaziirat lcarab, oo sidaa haddii aanu maxamed jiri lahayn maanta adigana ma aadan jirteen, oo haweenkao dhan way baabi'i lahayn, caalamkan uu dabargo'i lahaa. taa jaziirat lcarab bay ahayd. haweenka sidaasay u necbaayeen. inakeena oroba aynu tagne, halka aad intiina badan ku wada nooshihiin. oroba waxay ahayd meel jahli la liicaysa, la ciiraysa ayay ahayd. jahli ayay la liicaysay, dulmigii ayaa fiday, xaqii ayaa meesha ka baxay, sinaantii iyo ekaanshihii iyo cadaaladiina waa la waayey. dadka waxay isugu jireen dabaqad sare iyo dabaqad hoose oo taxta sifir ah ayay isugu jireen. waxaa ka jiray dulmi aad iyo aad u ballaaran. dulmigii iyo jahliga oroba ka jirayna waxaa ku lumay oo ku dayacmay xaqii ay lahayd ma aragtaa haweenka ay lahayd. qaarkood waxay u ictiqaadin jireen dadka ku nool oroba in haweenku yihiin xayawaan inay yihiin oo aanay ahayn bini aadam. xayawaan inay yihiin sida dugaago